السلام عليكم كلن وعن oo wanaagsan meel kasto caalamka joogtaan waa markale barnaamijyada caafimaadka mawduuceena ayaa waxa uu ku saabsan yahay waxtarka caafimaad ee qorfaha geedkan ayaa la rumaysan yahay inuu kamid yahay geedawoodka kuwooda ugu muhiimsan xawaashka udgoon ay jecel yihiin balaayin dad ah qorfaha ayaa mar laga qanacsan jiray sidii lacagta oo kale udgoonka u gaarka ah uu leeyahay waxa uu helisaa dhadhan wacan iyo ur diiran taas oo ka dhigaysa mid caan ku ah cunista khaas ahaan in cuntada lagu darsado iyo cabitaanada haddaba halkan waxaan kusoo koobi doonaa 10 faa'iido oo yahay geedkan loo yaqaan qorfaha kuwaas oo waxtar wax ku ool u leh caafimaadka guud ahaan ee qofka antioxidants sida dhirta kale qorfaha waxa ku jira isku dhiska awoodda leh ee lagu magacaabo polyphenols kuwaas oo laga helo antioxidantska difaaca oo jirka waxa uu jirka ka ilaaliyaa dhaawaca free radicalska oo haraadiga marka cuntada la burburiyo waxaanay sababaan xanuuno waqti dheer qaata oo halis ah caabuqa ama infectionka qorfaha ayaa loo adeegsadaa in lagu daro lagana sameeyo noocyo badan oo dawooyin ah waxaana inta badan loo isticmaalaa dawooyinka geedaha ee shiinaha urta iyo dhadhanka ugu gaarka ah qorfaha waxa kale oo laga soo saaraa saliidda muhiimka ee ku jirta jirifta ee loo yaqaano cinnamomaaldehyde waxay u muuqataa inay waxtar u leedahay ka ilaalinta iyo la dagaalanka jeermisida sida bakteeriyada iyo fangaska oo halis ku ah caafimaadka fayraska qaar ka mid ah cilmi-baadhisada ayaa sheegaya in kiimikooyinka samaysahaaneed ee qorfuhu lid ku yahay noolayaal badan oo halis ku ah caafimaadka dadka sidoo kale waxa uu jirka ka difaacaa fayrasyada qaarkood ay ku jiraan influenza iyo kaneecada keenta cudurka xumada ee loo yaqaano dengue fever oo hadda deegaanada Soomaalida farabaas ku haya sonkorta dhiig wareega waa mid caan ku ah qorfuhu inay ka caawiso maareynta sonkorta dhiigga waxaana taasi u muuqataa inay ku sameynayso dhowr habab oo kala duwan oo ay ka mid yihiin in la xadido xaddiga glucose ee galaya qulqulka dhiig wareeg tijaabooyin kala duwan oo lagu sameeyay bini'aadamku waxay muujinayaan in isku dhisyada laga helo qorfaha ay saameyn dhexdhexaad ku yeeshaan hoos u dhigista heerka sonkorta dhiigga iyo ka hortagista halista cudurka sonkorowga bararka jirka isku dhisyada antioxidantska ee laga helo qorfaha ayaa ka qayb qaata saameynta ka hortagga bararka inta badanna waxa uu sabab u noqdaa yareyntooda iyadoo jirka laga saarayo bararka dhinaca kalena wuxuu si aad ugu lug leeyahay ka hortagga horumarka cudurro badan oo daada la xiriira maskaxda xaaladaha caafimaad ee maskaxda sida cudurka Alzheimer ee keena ilowga ama dementia waxay u badan tahay si xumaasho hor leh oo ku yimaada unugyada maskaxda qorfaha waxaa ku jira laba curiye oo u muuqda inay ka hortagaan waxyaabaha dhaawaca dhismayaasha borotiinada ee maskaxda in badan oo ka mid ah tusaalayaashan waxaa laga soo qaatay xayawaanada tijaabada ee tuumbooyinka ee shaybaarka markaa weli wax badan lagama oga marka la eego sida ay saameyntan faa'iido ugu noqon karto dadka waxaana loo baahan yahay tijaabooyin kale oo dheeriya mustaqbalka si looga faa'iideysto qorfaha maareynta dhiigkarka waxaa jira cadeymo muujinaya in haddii la joogteeyo isticmaalka qorfaha lala xiriiriyo hoos u dhigida muddada dhow maareynta dhiigkarka inkasta oo tijaabadu u muuqato mid rajo leh balse waxaa loo baahan yahay tijaabooyin hor leh oo muddada dhow ah si looga faa'iideysto geedkan cajiibka ah markay noqoto cudurka dhiigkarka ama cadaadiska dhiigga ee sarreeya dheefshiidka qaar ka mid ah dhirta udgoonka ah qorfe waxay leeyihiin astaamo prebiotic ah in si joogta ah loo cuno ayaa kaa caawin karta dib u soo celinta bakteeriyada ku jirta mindhicirada taas oo leh faa'iidooyin caafimaad sida sameynta fitamiinada taageerada caafimaad ee dheefshiidka iyo yareynta khataraha caafimaad ee ku dhaca dheefshiidka wadnaha cadaadiska dhiigga ee sarreeya ayaa laga yaabaa inuusan ahayn keliya halista khatarta wadnaha oo lagu caawiyo isticmaalka qorfaha oo joogtaa waxaa u muuqda inuu saameyn togan ku leeyahay yareynta duxda ama subaga dhiigga iyo sidoo kale heerarka kolestaroolka ee qulqulka dhiig wareega kansarka inkastoo cadeymaha ilaa maanta ay ku kooban yihiin in la baaro tuubooyinka iyo daraasadaha la xiriira xayawaanada shaybaadhada haddana kuwa la xiriira qorfaha ayaa keeni kara ka hortagga kansarka maadooyinka ku jira qorfaha ee qaabilsan urta udgoon waxay u muuqataa mid faa'iido u leh yareynta korarka unugyada kansarka ee kordhinka taas oo xadidaysa saameynta xididada dhiigga ee burada iyo dilidda unugyada kansarka ugu dambeyntiina faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo qorfaha ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey nadaafadda ilkaha sida caadiga ah loo isticmaalo qorfaha ayaa ahayd muddo in ilkaha lagu daweeyo gaar ahaana ilka xanuunka iyo neefta xun ee afka badqabka qofka waa mid la isticmaali karo da kasta marka laga reebo dadka xasaasiyadda ama alerjiga ku leh waana inaan laga badin qaadashada ama isticmaalkiisa geedkan hal qaado maalintii tan iyo kula dambe oo ku mahadsantihiin dhegeysigiina nabadgelyo